Assalaamu calaykum kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii 7 ee qisadii Maxamuud Yare. Labadii gabdhood way isfiiriyeen kadib waxaa hadashay Muxibo oo tiri awowey maxaad isku soo dhibtay anigaaba kuu soo socday. Odaygii ayaa ku yiri dhib malahan awowe, qalbigayga ayaa ii diiday in aan sii fadhiyo weliba anigoo aan xaqiijinin in uu yahay Maxamuud wiilka gabadhiida dhashay. Sheeko kooban kadib ayaa odaygii waxa uu ku yiri gabadhaydii Maxamuud hadduu noqdo wiilka aan awowga u ahay waa ii farxad, haddii uu noqon waayana waxaan Rabbi ka rajaynayaa in aan degdeg u helo. Maxamuud markaad wacdo u sheeg in ay gabadha saaxiibtaada ah in ay tiri habaryartay oo dhimatay ayaa jirta, magaceedana waa Maryama ee armaad is leedihiin. Kadib ayaan is wareysan doonaa insha Allah. Sidii ayaana la isku afgartay. Maxamuud wuxuu soo qaatay teelkii kadib wuxuu sugi waayay xaaskiisa Muxibo inkastoo ay isku waqti ahayn oo ay iyadu markaasi u ahayd habeenbar. Kaarkii lacagta ayuu soo qaatay, talow maxay kugu dhihi doontaa ayaa ku taagan. Waqtigan wuu gaabinayaa oo saacadii iska daayay, xitaa daqiiqadihii ayaa gaabis ah. Muxibo iyada waxaa qabtay xanuun marba marka ka dambaysa kusii kordhayay. Waxa ay u wacatay saaxiibteed Miski, markiiba way u timid waxaana loo qaaday isbitaalkii. 3 saacadood kadib way umushay ilmo nabad qaba iyo iyada oo nabad ah. Gabadhii kaliya ee Xaaji Malyuun ay dhashay ninkeeda waxay isqabeen muddo 5 sanadood, wax caruur ahna iskuma aysan dhalin. Ninkii ayaa gabar kale la guursaday, sida lagu yaqaanay dumarka aad ayay u maseertay. Kadibna wuxuu isku dayay in uu maseertir siiyo oo reerkiisa dhaqdo, balse way ka diiday. Waxaase ugu sii darnayd markay gabadhii lala guursaday ay uur yeelatay. Maxamuud markii la gaaray xilligii uu sugayay ayuu hore ka wacay taleefanka xaaskiisa Muxibo. In cabbaar ah markuu dhacayay ayaa waxaa ka qabatay Miski. Maxamuud ma iska hubinin cidda ka qabatay taleefanka. Hore ayuu ka yiri assalaamu calaykum macaan, nafta ka waran. Miski ayaa ugu jawaabtay wacalaykum salaam walaal, ma ahan Muxibo ee waa gabar Miski la yiraah. Isbitaalka ayaan joognaa hambalyo. Muxibo way umushay iyada iyo caruurteedana way nabad qabaan. Wuu farxay weliba si xad dhaaf ah wuxuuna ku yiri ma la hadli karaa walaal. Maya ayay ku tiri isaga oo aan ku qanacsanin ayuu haye yiri, balse waxaa codka maqashay Muxibo oo tiri ii dhiib waan la hadlayaa, waana loogu dhiibay. Iswaraysi kadib ayuu ku yiri maxaa iigu sheegi weysay xalay hadduu xanuun ku hayay. Aniga aad ayaan kuu jeclahay, maadaama aan kula joogin in aan daqiiqad walba aan kaa warqabo ayaan jeclahay. Waxa ayna ku tiri gacaliya aniga xalay markaan kula soo hadlayay wax xanuun ah ima haynin. Kadib ayaa la ii qabtay xoog xumana iguma dhicin. Miski ayaa wax walba ii ahayd, qoftaasi u mahad celi, ayada ayaa booskaada ii buuxisay. Kadib waa la ismac salaameeyay. Gabadhii Xaaji Malyuun waxay weerar ku qaaday gabadhii lala guursaday. Wax dhibaato ah uma aysan geysanin. Ninkii oo maqlay xaaladda ayaa isku dayay in uu qanciyo, waxayna ballan ku qaaday in ay naagtaasi dhaafaynin. Dadkeeda ayuu ugu yeeray waxayna hortooda ka cadaysay in iyada la furo ama gabadha kale. Muran dheer kadib in iyada la furo ayaa la isku afgartay, waxayna dib ugu soo laabatay gurigii hooyadeed ee laga guursaday 5 sano ka hor oo aysan oolin farxaddii hore. Miski awowgeed waxaa ku taagan kasalgaaridda Maxamuud in uu yahay wiilkii ay gabadhiisu dhashay iyo in kale. Haddana ma dhihi karo ii wac gabadhii waayo iyadaaba umal ah. Maalmo markay ka soo wareegatay ayay Muxibo iskeed u weydiisay Maxamuud iyadoo isla hadalkii odayga fulinaysa. Maxamuud aboowe, Miski ayaan is wareysanay muddo kadib. Tilmaamo badan oo ay ii sheegtay iyo sidaan adiga kaa hayo waa isula kay ekaateen. Waxayba ila noqotay inaad walaalo tihiin dhanka hooyooyinka ee adiga wax ma ka taqaanaa abtiyaasha ama habaryaradaada. Maxamuud ayaa u sheegay in uu jiro magac uu ka maqlay aabihiis balse hadda uusan horey ka soo qaban karin inkastoo uu mar hore maqlay. Intaas kadib wuxuu u sii raaciyay waxaan ku tala jiray markaan jaamacadda dhameeyo gobolkii hooyadii ka soo jeeday in aan ka raadiyo ehelkayga. Haddii ay reerkani qoyskiisa noqdaan uu aad ugu farxi lahaa, haddii kalena uu rabo inuu dartood Soomaali ugu laabto. Muxibo ayaa u sheegtay in ay marka hore wada hadlaan isagii awowga si ay wax walba isugu sheegaan, ayna rabto in ay u ballamiso. Ee goorma ayaan kuu ballaminayaa oo aad la hadlaysaa ayay ku tiri. Maxamuud ayaa yiri aniga xilli walba diyaar ayaan ahay, laakiin isaga xilliga la heli karo ii soo sheeg sida ugu dhaqsiyaha badan. Miski ayaa timid kadibna in Maxamuud wax walba ay kala hadashay ayay u sheegtay, uuna doonayo isagana in uu la hadlo awoowe waqtiga ugu dhaqsiyaha badan in loo ballamiyo awoowe. Miski degdeg ayay u laabatay awoowe ayayna u tagtay, arrintii ayayna u sheegtay. Wuxuuna ku yiri beri galabtii ii ballami markaasi oo ay Maxamuud u tahay fiidkii.
sidii ayaa la isku afgartay oo Maxamuud fariin qoraal ahaan ayaa loogu diray. Wuxuu waqtiga isguraba waxaa la gaaray xilligii Maxamuud la wici lahaa. Miski Muxibo iyo awoowe ayaa wada jooga. Lacag fiican ayaa lagu soo shubtay. In hadalka dhexda ku kala go'ay ayaa la diidan yahay, waxaana la wacay taleefankii Maxamuud si dhaqso ah ayuuna ugu qabtay. Waxaa isa salaamay Maxamuud iyo Muxibo. Sheeko kooban kadib ayay u sheegtay in uu la joogo awoowe ayna ugu dhiibayso si ay u wada hadlaan. Hore ayuuna ka aqbalay. Awoowe ayaa teelkii qabsaday, waa la isa salaamay. Isbaridan kadib ayaa awoowe hadalkii bilaabay isaga oo leh, awoowe aniga markaan maqlay in aan wax walba iska yeelanay aad ayaan u farxay. Dareenkaygan lama qiyaasi karin, inkastoo aanan ogeyn inaan noqon doonto wiilkii gabadhayda dhashay iyo in kale. Haddana markaasi waxay iila ekeeday inaan helay muddo 25 sano ah kadib gabadhaydii xasuusteeda. Maxamuud ayaa u jawaabay awoowe oo yiri, aniga si aan u raadiyo qoyska hooyaday maba garanaynin, waayo qof ka mid ah magaciisa ma aqaan. Markii adiga laga reebo iyo habaryar magaceeda oo aan aabba ka maqlay. Xalay oo dhan waxaan soo xasuusanayay isla magacaasi. Ugu dambeyn Allah ayaa i garansiiyay oo wuxuu ahaa habaryar Mulki oo in ay dhimatay aan maqlay. Marna aabbe iyo hooyo ku soo booqatay magaalada. Xaaji Malyuuna waxaa guriga isugu wada yimid dhammaan carruurteedii ay dhashay. 4toodii way joogaan. 3 wiil midna wax shaqo ah ma qabto, wax isku day guur ahna haba sheegin. Gabadhiina ninkii way soo kala tageen oo iyada guri barwaaqo ayay ka tagtay, laakiin kuma soo laaban. Xaaji Malyuuna waxay bilowday in ay soo xasuusato xumaantii ay Maxamuud u geysatay, tanina ay tahay ciqaabteeda oo ay marayso. Maxamuud habaryarta uu magaceeda sheegay waa miski hooyadeed oo ah curudda awoowe. Odaygii intuusan u jawaabin ayaa ilin farxadeed ka soo daadatay oo wuxuu xaqiiqsaday waxa uu la hadlayay in uu yahay wiilkiisa. Muddo 25 sano ah kadibna uu helay xasuustii gabadhiisa, sidoo kale ay isla markaasi ag jiifaan 2 carruur ah uu isaga dhalay. Maxamuud isaga waxba ma garan, odaygiina farxad ayaa ka tanbadisay oo wax hadal ah waa ka soo bixi la'yahay. Maxamuud ayaa yiri, awoowe ila hadal, maxaa kugu dhacay? Maad ii jawaabteed, hadalkayga miyaa wax ka garatay? Ila hadal awoowe, waan ku baryaa, iyo erayo kale oo laablakac leh. Gabdhihiina waa ay yaaba yihiin, midba si ayay u fikiraysaa. Mar waxay isdhahaan talow miyay isfahmeen, marna waxay isdhahaan malaha sidii la filayay ayay noqon weysay oo waa niyad jab. Mar dambe ayaa odaygii yiri, Maxamuud awoowe, aniga waxaan ahay awowga hooyada dhalay. Habaryartaada Mulki ee aad sheegtayna waa gabadha miski hooyadeed. Waan ku faraxsanahay in aan kula hadlo, ku ogaado in aad nooshahay. Weligay waxaan ku fikirayay in aan kula kulmo. Waxaan ku ducaysan jiray inaanan dhimanin anigoon ku arkayn. Balse nasiib wanaag waxaan helay wiilkayga oo weliba qoys buuxa ah. Ilaah ayaa mahadaas iska leh. Maxamuud waxaa loogu dhiibay gabadhii walaashiis ahayd ee miski. Markii horena uu u yaqaanay in ay xaaskiisa saaxiibteed tahay. Isagana qudhiisa markaani wuu ilmaynayaa. Hadalka awowgiis unbaa bilaabay, haddana dhameeyey. Miski markii loogu dhiibay wax cod ah kama soo bixin oo waxay noqotay farxad lala wada ilmaynayo dhammaantood. Muxibana kama marna oo ayadana dhankeeda ayay ka ilmaynaysaa. Daqiiqado badan kadib ayaa jawiga sidiisii ku soo laabtay. Waa la wada sheekaystay. Maxamuud ayaa yiri, hooyo la'aanteeda wax badan nolosha waa u soo dhibtooday. Aabbahay Allah u naxariistay, wax walba oo farxad ahna wuu igu dadaalay, laakiin boos hooyo cidna ma buuxi karin. Waxa uuna ku yiri, habaryar iyo abtiyaal inaan wada barto ayaan rabaa. Awoowe ayaa u sheegay in maalinta Axadda ah ay firaaqo yihiin, dhammaana la wada bari doono insha Allah. Sidii ayaana la isku macsalaameeyey. Odaygii oo faraxsan ayaa guriga dib ugu soo laabtay oo weliba indhihiisa casaadeen. Kadib ayuu ugu warramay sidee wax u jiraan wiilkiisii oo markaasi ay guriga ku wada noolaayeen. Balse markii hore arrintaani aan la soconin, waayo ilaa ay run ka noqoto inaanan cidna loo sheegin ayay ku heshiiyeen miski iyo awoowe. Dhammaan qoyska reerka waxaa lagu wada wargeliyay in wiilkii ay dhashay Maryama uu nool yahay, caawana lala hadlayo oo ay miski soo sheegtay. Habaryarada inta badan inay Axadda sugaan way diideen, waxayna dalbadeen in teelkiisa la siiyo si ay ula hadlaan. Axaddana ay imaan doonaan. Maxamuud teelkiisii wuxuu noqday mashquul daran. Waxaa si isdaba joog ah u soo wacayo dhammaan waalidiintiis iyo carruurtoodii. qof walba siduu ugu faraxsan yahay ayuu u sheegayaa. Dhanka kale Muxibo iyo carruurtoodii dhulka hadhigan ayaa ka dhacday. Waxay heleen farxad booqasho joogto ah, qoys ballaaran, xiise iyo kalgacal aysan weligood horay u arag. Muxibo waxay bilowday in ay u dacwooto ninkeeda Maxamuud si ay u keento dalka ay ku nooshahay ee Kanada.
la soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho. Daawade haddii aad ka heshay qisadani fadlan muuqaalka laag inoo saar. Haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo. Furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalka isla markaa aynu soo gelino. Tan intaan ku kulmayna qaybta kale nabadgelyo.